الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، إلهي فضلك تبارك وتعالى وحين كسر دواني وإن كسر آدن وأن قابل صنهاي tobankii bishii Ramadaan u dambeysay oo inaga xigto laba habeen kaliya. waa bisha dhuuxeedii waa bisha khulaasadeedii waa meeshii ugu muhiimsanayd bisha habeenadeeda iyo waqtiyadeeda kala duwan. waa meeshii nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu dadaalka siyaadada ku bixin jiray, laana waxa way tobankan dambe bisha inteeda kale way ka fadli badan yihiin. wanaaga iyo khayrka la sameeyana la mid ma aha waqtiyada kale, xataa bisha inteeda kale la mid ma aha. waa waqtigii marka dadka ahlul khayrka ay tartami lahaayeen, waa waqtigii ganacsatada aakhiro ay sahay qaadan lahaayeen oo ay faa'iido raadin lahaayeen. waa waqtigii aan juhdiga iyo dadaalka gelin lahayn. waxaa ku filan tobanka dambe fadli waxaa ugu filan in ay ku jirto habeenka laylatul qadriga. habeenkaasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka uu ku sheegay fadaa'il fara badan. quraanka kariimka buu ilaahay soo dejiyay oo uu dooray inuu soo dejiyo. habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay camalka la sameeyo inuu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo ayadu ayna ku jirin 83 sano iyo ziyaado waay. habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay habeen barakadeed iyo khayrkeedu badan yahay, layla mubaaraka. wuxuu ku tilmaamay arin kasta in la kala saaro oo ay culimadu ku fasireen sanadkaas soo socda waxyaalaha dhacaya diiwaanka weyn ee looxul mahfuudka inta laga soo qaadaa la soo dejiyaa والله soo fasliya. malaa'iktaasi habeenada kale ka badan u soo dagayso malakul jibriil la jiro. waa habeen nabada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaa waagu ka bariyo. habeenkaasi nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu baadi goobay, bisho dhan buu ka baadi goobay. tobanka horu nabigu i'tikaafay isagoo raadinaya habeenkaas. tobanka dhexu haddana i'tikaafay isagoo raadinaya. markaas waxa lagu yiri tobanka dambe ku jirtaa. tobanka dambu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ka raadiyay halka ku dadaala, gaar ahaan habeenada tirada isdhaafka ka raadiyo ku dadaala buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. gaar ahaan habeenka 23aad buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam. laakiin culimadu sayleeyeen ahadiista ku soo aroortay si la isu waafajiyo waxay leeyihiin macnaha saxdii waxa weeye in sanadba ilaahay meel gelinayo, meel ay ku jirto ma taqaanid marka. saas daradeed baa nabigeena laga qariyay sallallahu alayhi wasallam si ay umadu khayrka u badsato, habeen kastana u filato inay laylatul qadri tahay oo markaas ay taacada u badsadaan. nabiga waa loo sheegay kadibna waa laga qariyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. habeenkaasi tobankan dambe ku jira. tobankan dambe waa gabagabadii iyo khatimkii iyo sagootiskii bisha way. waa sagootiskii nabigeenu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam a'maashu wa khatimka waay. maxaad ku khatimtay bishii hadaad soo dadaashay? maxaad ku gabagabaysay oo kuugu dambeeyay? cimrigaaga hadaad dadaashay maxaa kuugu dambeeyay? cimrigu muxuu u dambeeyay? maxaa amal kuugu dambeeyay muxuu ahaa? al-umur bil khawaatib. khaatumadu waa muhim. sidaas daradeed inuu dadaalkeenu bato, juhdigeenu bato, inagoo nabigeena maxamed ku dayanayna sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kaana yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin habeena kale iyo waqtiyo kale toona. wala sifa faahiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam a'maashu sameyn jiray wixii uu soo waday a'maal khayrana wuu si laban laabi jiro, wuu siyaadin jiray. laakiin si gooniya waxa farta loogu fiiqay xadiidka saxiixaynka ku yimid xadiis Aisha waxay leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam tobanka dambe Ramadaan haday soo galaan nabigu sallallahu alayhi wasallam ahya laylahu habeenkiisa waa nooleen jiray. وأيقظ أهله أهل كيسنا وتوسين شري وشد مئزره قنتقنا وأتكيسن شري صلوات ربي وسلام عليه. هبين كيسو نولين شري بمعنى إله عبادتي سو هبين كإنتي سبضا كقادا شري النبي صلى الله عليه وسلم. وحي علماء ليهن
cibaado oo dhan waa nolol waqtigay nolol u tahay oo zamankiibay nolol u tahay oo makaankiibay nolol u tahay oo quluubtay nolol u tahay cibaadada iyo dikrigu waa nolol la'aantiina waa geeri saas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka fi sahih muslim wuxuu yiri guri ilaahay lagu xusay iyo guri ilaahay aan lagu xusini waxay ka dhigan yihiin meyd iyo noole oo kale bakhti iyo mid nool oo kale quraanka waa ka ilaahay noogu sheegay dadka qalbigooda iimaanka iyo dhikriga ilaahay uu ku jiro ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad nool gaalada iyo munaafiqiinta qalbigooda uu dhikriga iimaanku ka maqan yahayna bakhti buu ilaahay ku tilmaamay wama yastawi al-ahyaa'u wala al-amwaat sidaas daradeed nolosha qalbiga iyo nolosheeda rasmiga wasideedaba waxa weeye waa ilaahay daacadiisa iyo cibaadada iyo iimaanka iyo khayrka nolol ah habeenkiisu noolan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay leeyihiin culimadu lagama qaadanayo inuu habeenka oo dhan soo jeedi jiray mana diidayso waqti kooban inuu ruuxu nasto oo yara seexdo maxaa yeelay Aisha nabiga waxay ka warinaysaa kama fi sunan an-nisa'i waxay leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waligay ma arkin asagoo quraanka hal habeen ku wada akhriyay mana arkin bay tiri isagoo habeen dhan soo jeeday ilaa waagu ka bariyay ma arkin bay tiri asagoo bil kaamila soomay oo ramadaan ahayn waligay ma arkin bay tiri oo yaa ka khabiirsan oo uga xogaalsan nabi maxamed cibaadadiisa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi faqihada ummul mu'miniin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma iyo ummahatul mu'miniin laana nabiga cibaadaadkiisa nawaafishiisa ayaga cid uga xogaalsana ma jirin saas daradeed waxay leedahay habeen dhan nabigu ma soo jeedi jirin yaani wax yar buu yaranasan jiray kadibna cibaadada ilaahay buu istaagi jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ahya layla habeenka marka waa in la nooleeyo وأيقظ أهله أهل كيسنا وتوسين جري النبي صلى الله عليه وسلم ضبيعة سيدة ضبوا وحاؤوا أهيد سنة كإنتي سكلابا مركو النبي صلى الله عليه وسلم كي تكنيو إنو ريريه سكعيو حاسسك كعيو دادك قوريك تشوغا كعيو سي أيقون فرصة دي جانسك وقفا إيديستان صحيح البخاري وحاكوسك النبي صلى الله عليه وسلم هبين نبي ذا كم ظهور دادا كسوبودي سوى أرقى أحسن النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحده سبحان الله عاوى محافتا لسودتشي maxaa khazaain la soo dajiyay iyo khasnado war dumarka qolalka jiifaya kiciya man yuqidu sawahib alhujurat dumarka qolalka jiifaya kiciya badana haweenay adduunka markay joogto maraqabta aakharana qaawan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bal wuxuu yiri allah u naxariisto nin habeenkii kacay oo tukaday oo xaaskiisa kiciyay oo haday kici weyday biyo ku sayray allah u naxariisto haweenay tukatay habeenkii kacday tukatay ninkeeda kicisay haduu kici waayena biyo ku sayray waa qoys isu kaalmaysanaya khayrkii taacad علشان dumarka kaliya ma aha caruurta wixii xamili karo dhan in laga qayb geliyo oo cibaadada loo kiciyo hadiyigi nabigeenu aha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ay qada ahla arinta saddexaadi شد مئزره guntigu adkaysan jiray culimada waxay ku fasireen dumarka iyo gogashoodu ka fogaan jiray galmadu ka fogaan jiray tobanka bari laana i'tikaaf buu gali jiray i'tikaaf iyo dumarna isma laha wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid haduu ruux marba i'tikaafsan yahay dumar la isma yaqaano sidaas daraadeed dumarka waa ka fogaan jiray sunnadiisay kamid ahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tobanka dambe haday soo gasho inuu nolosha dhan intuu ka dhaxbaxo oo masaajidka dhaxdiisa teen dhayar ka dhisto halka inuu galo oo inuu hawl muhiim ah u soo baxamoye uu san bixin xiriirka rabbigi علاقاتكن ارتباطاتكن حريركن مشاغلكن الدنيا ذا وصوحره لأن مدة كوبا يدون يا النبي صلوات ربي وسلام عليه قلبي سئنو حريرك ربي أتكيو سأستردد باعتكافي جري صلوات ربي وسلام عليه إلى أنتو كجيريون ينو اعتكافي مدينة مركو تجي صون كاللجوة تبيي لقب الله إلى جيردي سي نبي اعتكاف كما تجين صلوات ربي وسلام عليه
kadibna dumarkiisii iyo xaasaskiisii iyo saxaabadiisii baa ictikaafkii qaatay oo ictikaafi jiray nebi maxamed gadaashii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lama hayo isagoo ictikaafka ka tegey ramadaanka ilaa hal sano oo nebigu sal alla alay wasalam intuu masaajidka dhexdiisa teendho ka dhistay teendhadii markuu hagaajistay ayay caaisha idan weydiisatay rasuulka ilaahi ii idan anigana agtaada inaan mid ka dhisto waa uu idmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xafsa waxay ku tiri caaisha anigana nebiga ii weydii way u weydiisay waa u idmay iyaduna agtiisa ka dhisatay zaynab baa ka war heshay markaas iyaduna agtooda ka dhisatay nebigu meeshii wuxuu ka soo baxay isagoo meeshan teendhooyin dhooban yihiin mid xag ka dhisan waa fahmay nebigu sal alla alay wasalam albira aradna buu nebigu sal alla alay wasalam ma wanaag bay u jeedaan waa dumar isu masayrsan ma wanaag bay u jeedaan bay idinla tahay fujiya buu nebigu sal alla alay wasalam teendhadayda fujiya waa ka tegey ictikaafkii ayaguna guryahoodii bay ku kala noqdeen haddiiba nebiga meeshii ka kaxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkaasi waa ka tegey ictikaafka tobanka dambe laakiin muxuu sameeyey saa kagama tegin tobanka beriye bisha shawaal u horeysuu ku bedeshay oo nebigu ictikaafay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed xataa hadday duruuf mucayana dhaafiso nebigu sal alla alay wasalam waa soo bedelkeeduu la imaan jiray ahmiyadda ay leedahay ictikaafka iyo sunnadaasi qiimaha ay ku fadhido ayaad garanaysaa inuusan nebigu si fudud uga tegi jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal waxaa sugan sanadka uu geeriyoon doono nebigu sal alla alayh wasalam 20 beri buu ictikaafay bedelkii 10 beri waxay tilmaamaysaa ruuxa markii da'diisu ay korodho oo xagga qabriga u sii dhowaado inuu camalka siyaadiyo oo wax ku daro oo intii hore uusan ku ekaynin waa ka rabbigii tabaaraka wa tacaala ku yidhi idaa jaa nasrullahi waalfatxu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هدي حالدها علامتها سيمادان إلهي قول كسيو مكاءات فرطو دادكو دينتا أي كوحكوحية أي قودو أصوغلان قبائل هل مرصوة إسلام إيسا مركاسي قيري دادي واسود وادي ديار قرو نبي محمدو محان كو ديار قرو با تصبيح دا إيا حمد دا إيا استغفارتا بدي بالله ruux markay geeridii soo dhawaato aakhiru umri uu joogo waa inuu xagga aakhiro u bato xagga qaabilo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka sanadku geeriyoon doono 20 bari buu ictikaafay bedelkii 10 ictikaafkaasi marka hal ogaado oo hal lagu dadaalo muhiimaha masaajidun jaamica hadaad hesho waad ku ictikaafi kartaa salaadaha jumcada iyo jamaacaadka lagu tukado inkastoo saddexda masjid ay sii fadli badan yihiin masjidul xaraamka iyo masjidka nabigeena madiina هي مسجد الأقصى أي سيف بديهين هذا مسجد هذا مسجد كستو جامعة ولقوا اعتكافي كرا على الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم وحكى لتولى لي المهمة طبعا كان ذنبه أعماشا قالقة مروا البنا قالقة لكن طبعا كان ذنبه قالقة السيعة ودعاء يا أدون كوينوس بهم بهيو إنه ربك يسوء هيو إنه قعمها أتاكتو إنه بريادة بديو sujuuda ku baryo taagnida ku baryo fadhiga ku baryo jiifka ku baryo maxaa yeelay Allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn waxa kamid baryada bal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam cibaado oo dhan wuxuu ku koobay baryadu ku koobay addu'a huwa al-ibada baryada iyada umba cibaada abu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyada umba cibaada kullama adoonku baryadiisu badato ilaahi tabaaraka wa tacaala dadka kale waa uga dhow yahay albaabada ilaahay garaac danahaaga u gudbiso duruufahaaga u sheego baahidaada sheego si tadarruc iyo isbihimbihin ku jirto u sheego Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhuma nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ku tir rasuulka ilaahay oo hadaan waafaqo laylatul qadriga maxaan dhahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam salaatuka madhe sadaqana uma tilmaamin قرآن أخرسنا أمة المامن كل قد وأعمال واوين لكن النبي وحكور صلى الله عليه وسلم هداد ليلة القدر وافقده هي محان لها وحاتر هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله وحاته متك عفين تبضا وأدو مدي سسامحة يا ربي وإسكك عفي إله إسامح ودن بقى قداف وعيبت إذا أستر وعذابك إلالي سأبري بنبي كوري صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
marka baryadu habeenadani waa cibaadaadka aadka weyn ka mid tahay waxaan meesha ku jira sidoo kale cibaadaadkii kale sadaqaadkii waa qaali quraanka akhriskiisii waa qaali cibaadaadkii kale la waday waa qaali laakiin waxa weeye kuwan si gooni ah ay nusuustu u tilmaantay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam mudnaan khaas siin jiray tobanka dambe aynu dadaalo oo aynu sahay qaadano oo aynu khatimkii khaatumada hagaajino biidnillaahi tabaaraka wa tacaala la'alla wa asa waxa dhici karaysa inay tahay tii kuugu dambeysay hoosta ka xariiq waxa dhici karaysa inay noqoto 10 bisha hadiiba ilaahayna gaarsiiyo 10kii bisha ramadaan ee kuugu dambeysay inay noqoto dhici karaysa hamogaanin hana nacasoobin yeena ka hoos bixin dadaal iyo جهدي بحي كان صحيح قاضي بإذن الله تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله إلهي فضلك تبارك وتعالى وحين كسر دواني وإن كسر آدن وأن قابل صنهي توانكي بشر رمضان قدام بيسي وإنك حكت لبها بين كليه وبشا ruuxeedii waay waa bisha khulaasadeedii waay waa meeshii ugu muhiimsanayd bisha habeenadeeda iyo waqtiyadeeda kala duwan waa meeshii nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu dadaalka siyaadada ku bixin jiray laana waxa way tobankan dambe bisha inteeda kale way ka fadli badan yihiin wanaaga iyo khayrka la sameeyana la mid ma aha waqtiyada kale xataa bisha inteeda kale la mid ma aha waa waqtigii marka dadka ahlul khayrka ay tartami lahaayeen waa waqtigii ganacsatada aakhiro ay sahay qaadan lahaayeen oo ay faa'iido raadin lahaayeen waa waqtigii aan juhdiga iyo dadaalka gelin lahayn waxa ku filan tobanka dambe fadli waxa ugu filan in ay ku jirto habeenka laylatul qadriga habeenkaasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka uu ku sheegay fadaa'il fara badan quraanka kariimka buu ilaahay soo dejiyay oo uu dooray inuu soo dejiyo habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay camalka la sameeyo inuu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo ayadu ayna ku jirin 83 sano iyo ziyaado waay habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay habeen barakadeed iyo khayrkeedu badan yahay layla mubaaraka wuxuu ku tilmaamay arin kasta in la kala saaro oo ay culimadu ku fasireen sanadka soo socda waxyaalaha dhacaya diiwaanka weyn ee looxul mahfuudka inta laga soo qaadaa la soo dejiyaa oo la soo fasliyaa malaa'iktaasi habeenada kale ka badan u soo dagayso malakul jibriil la jiro waa habeen nabada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaa waagu ka bariyeeyo habeenkaasi nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu baadi goobay bisho dhan buu ka baadi goobay tobanka horu nabigu i'tikaafay isagoo raadinaya habeenkaas tobanka dhexu hadana i'tikaafay isagoo raadinaya markaas waxa lagu yiri tobanka dambe ku jirtaa tobanka dambu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ka raadiyay halka ku dadaala gaar ahaan habeenada tirada isdhaafka ka raadiyo ku dadaala buu nabigu sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan habeenka 23aad buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam laakiin culimadu sayleeyeen ahadiista ku soo aroortay si la isu waafajiyo waxay leeyihiin macnaha saxdii waxa weeye in sanadba ilaahay meel gelinayo meel ay ku jirto ma taqaanid marka saas daradeed baa nabigeena laga qariyay sallallahu alayhi wasallam si ay umadu khayrka u badsato habeen kastana u filato inay laylatul qadri tahay oo markaas ay taacada u badsadaan nabiga waa loo sheegay kadibna waa laga qariyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi
habeenkaasi tobankan dambe ku jiraa tobanka dambe waa gabagabadii iyo khatimkii iyo sagootiskii bisha way waa sagootiskii nabigeennuna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam acmaashu waa khatimka waay maxaad ku khatimtay bishii hadaad soo dadaashay maxaad ku gabagabaysay oo kuugu dambeeyay cimrigaaga hadaad dadaashay maxaa kuugu dambeeyay cimrigu muxuu u dambeeyay ma amal kuugu dambeeyay muxuu ahaa al-umur bil khawatib khatumadu waa muhim sidaas daraadeed inuu dadaalkeenu bato juhdigeenu bato inagoo nabigeena maxamed ku dayanayna sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana yajtahidu fi al-ashr al-awaqir ma la yajtahidu fi ghayriha toban kan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uu san bixinin habeena kale iyo waqtiyo kale toona wala sifa faahiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam a'maashu samayn jiray wixii uu soo waday a'maal khayrana wuu si laban laabi jiro wuu siyaadin jiray laakiin si gooniya waxa farta loogu fiiqay xadiidka saxiixaynka ku yimid xadiis Aisha waxay leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam tobanka dambe ramadaan haday soo galaan nabigu sallallahu alayhi wasallam ahya laylahu habeenkiisa waa nooleen jiray wa ayqadha ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray wa shadda mi'zarahu guntigana waa adkaysan jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenkiisu nooleen jiray بمعنى إله عبادتي سو هبينك انتي سبدان كو قادن جري النبي صلى الله عليه وسلم وحي علماء ليهين عبادة أردن ونولل وقتي نولل أتاهي أو زمن كيبه نولل أتاهي أو مكان كيبه نولل أتاهي أو قلوبتي نولل أتاهي عبادة إيه ذكر قوى نولل لأنتي نواجيري ساستردد بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم وحيري قري إلهي اللغو حصي إيه قري إلهي أن لغو حسيني وحي كدقيهين ميت إيه النولي أوكالي بختي إيه من نولي أوكالي قرآن كان واك إلهي نوغو الشيغي دادك قلبي قودا إيمانك يذكر إلهي وكتشر إلهي وحكوت المامي داد نول قال دا إيه منافقين تقلبي قودا وذكر إيمانك كم قيهين بختبو إلهي كت المامي وما يستوي الأحياء ولا الأموات سيدا استردد نولشة قلبك إيه نولشة الرسمك والسيدا دبا وحوي وإلهي دا عديس إيه عبادة إيه إيمانك إيه خير كان نولل هبين كيسو نولين شري النبي صلى الله عليه وسلم حيلين علماء لقما قادنا إنو هبين كودن سو جيدي شري من الديدي سو وقتي كوبان إنو الروح النصطو يرسي يحضو محيل عائشة النبي وحي كور النساء كما في سنن النساء وحيلادها النبي صلى الله عليه وسلم ولي ما أركن أسقو القرآن كهل هبين كوة أخريي mana arkin bay tiri isagoo habeen dhan soo jeeday ilaa waagu ka bariyay ma arkin bay tiri asagoo bil kaamila soomay oo ramadaan ahayn waligay ma arkin bay tiri oo yaa ka khabiirsan oo uga xogaalsan nabi maxamed cibaadadiisa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi faqihada ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anhuma iyo ummahatul mu'minin laana nabiga cibaadadkiisa nawaafishiisa ayaga cid uga xogaalsana ma jirin saas daraadeed waxay leedahay habeen dhan nabigu ma soo jeedi jirin yaani wax yar buu yaranaysan jiray kadibna cibaadada ilaahay buu istaagi jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ahya layla habeenka marka waa in la nooleeyo wa ayqadha ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam dabeecad sideedaba waxa uu ahayd sanadka intiisa kalaba markuu nabigu salaada habeenkii tukanayo inuu reerihiisa kiciyo xaasaska kiciyo dadka guriga jooga kiciyo si ayaguna fursad iyo jaaniska uga faa'iideystaan صحيح البخاري وحكوسك النبي صلى الله عليه وسلم هبين نبدا كميد هردده كسو بودي اسو ارغغخسن النبي صلى الله عليه وسلم مركاس وحده سبحان الله عاو محافتا لسودجي محا خزائن لسودجي يخسندو وردو مركا قوللك جيفيا كعيا من يوقظ صواحب الحجرات دمرك قوللك جيفيا كعيا بدنا هويني ادونك مركي جوجتو مرقبتا آخرنا قاوم بو نبي قول صلوات ربي والسلام عليه بل وحيد الله أن حريستو نين هبينكي كعي أو تكذي أو حاسكي سكعيي أو هدي كعوي ذي بيكو صيري الله أن حريستو هويني تكتي هبينكي كعدي تكتي نين كذا كعسي هدو كعوي بيكو صيري وقويس سوكا الميسانة خير كي طاعد على شاني
dumarka kaliya ma aha caruurta wixii xamili karo dhan in laga qayb geliyo oo cibaadada loo kiciyo hadyigii nabigeenu ahaa salawaatu rabbi wa salaamu calayh ay qada ahlah arinta saddexaadi shadda mi'zarah guntigu adkaysan jiray culimada waxay ku fasireen dumarka iyo gogashoodu ka fogaan jiray galmadu ka fogaan jiray tobanka bari laana i'tikaaf buu gali jiray i'tikaaf iyo dumarna isma laha ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذو الروح مربع اعتكاف سيئة هي دمر ليسما يقانو سيداس دراد الدمر كوا كفوغان شري سنة دي سيكم بده صلوات ربي والسلام عليه طبعا كدن بهدي سوقشو إنو نولش دان انتو كدح بحو ومساجد كدح دي ستين داير كدلستو هالكا إنو قالو وإنو حول مهم أصاب بحمو يأوصن بحن حرير كالربي علاقات كان ارتباطات كان حرير كان مشاغل كان الدنيا ده وصوحره لأن مدة كوبا يدون يا النبي صلوات ربي والسلام عليه قلبي جيسو إنه حرير كالربي جي أتكيو سأستردد باعتكافي جري صلوات ربي والسلام عليه إلى أنتو كجيريون ينو اعتكافي مدينة مركو تجي صون كاللجوة تبيي لقب الله إلى جيريدي سي نبي اعتكاف كما تجين صلوات ربي والسلام عليه كدبنا الدمر كيسي حاسس كيسي صحابة دي سي اعتكاف كي قاتي أو اعتكاف يشري النبي محمد قداشي صلوات ربي والسلام عليه لما هي يسوع اعتكاف كتجي رمضان كإلا هل سنة والنبي صلى الله عليه وسلم انتم مساجد كده تين ده كدستي تين ده مركو حاجات استي أي عائشة إذا ويديست رسولك إله إذا أنا جنا أكتاد إن متكرست وأو إذمي صلوات ربي والسلام عليه حفصة وحي كتير عائشة أنا جنا النبي ويدي ويدي سواء إذمي يظن أكتي سكرست زينب باكور هالشيء مركز يظن أكتو ذا كرستي نبي ماشي وحكسه بحي سوى ماشي تين دوبينهين متحقق لسان وافهم النبي صلى الله عليه وسلم البر أردنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما وناك بيوتشيدان ودمر يسوم سيرسن ما وناك بيوتشيدان بإذن الله تهي فتشية بالنبي صلى الله عليه وسلم تنرضى إذا فتشية وكتج اعتكافك أيقون يقولوا هذي بيكون كلا نقدين هدي بالنبي ماشي كحي صلوات ربي والسلام عليه سنة كاسي وكتج اعتكافك طبعا كدم به لكن محسن يساك جمتجين طبعا كبريه بيش الشوال الرئيس كبد شيء والنبي اعتكافه صلوات ربي والسلام عليه ساس درادد حتى هذه ظروف معينه نافذه النبي صلى الله عليه وسلم واسو بدل كيدو لا ايمان جري اهميه اي leedahay اعتكافك iyo sunnadaasi qiimaha ay ku fadhido ayaad garanaysaa inuu nabigu si fudud uga tagi jirin salawaatu rabbi wa salaam alayhi bal waxa sugan sanadka uu geeriyoon doono nabigu sallallahu alayhi wasallam 20 bari buu i'tikaafay bedelkii 10 bari waxay tilmaamaysaa ruuxa markii daadiisu ay korodho oo xagga qabriga u sii dhawaado inuu amalka siyaadiyo oo wax ku daro oo intii hore uusan ku ekaynin wa ka rabbigi tabaaraka wa ta'ala ku yiri ida jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه حالة علامتها سيمادان إلهي قول كسيو مكاءات فرطو دادكو دينتا أي كوحكوحية أي قودو أصوغلان قبائل هل مرصوضة إسلاميسا مركاسي قيريدا دي واسود وادي ديار قرو نبي محمد محان كو ديار قرو با تصبيح دا هي حمدك هي استغفارتا بدي بالله روح مركي جيريدي صور دواتو آخر عمره وشوقه وإنه حق آخر أبطو حق قابله نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز سنة كو جيريون دونه لما تنبري باعتكافه بدل كي طبنك اعتكاف كاسي مركز هلا أقعدو وهلا قد دالو مهمة مساجد من جامعة هداد هشوات كو اعتكافي كرتا صلاة ده الجمعة دي جماعات كاللي قلتو كذا إنك استوصد أحد مسجد أي سيف اللي بدأيهين مسجد الحرام مسجد كالنبي جاء المدينة هي مسجد الأقصى أي سيفض لبضيهين هذا مسجد هذا مسجد كستو جامعة ولقوا اعتكافي على الصحيح.